السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان أرديدا قيمها بدن إيجعليني برتان حرفة جرافيك ديزاينكا كسو دوادا عشركين عاوة عشركان وحان كبران دونا سيدا لو سميو ايدي كار رونانتي وحان رجينا إنا تقانان ايدي كار كمانتا وحا قف ولي بعدينيا ميشو كشخيو iyo sidoo kale information ku saabsan noloshiisa ayaa ku qoran halkaasi markaad tagto xarumaha isbitaalka ama xarumaha shirkadaha waxaad ku arkaysaa shaqaale kasta oo halkaasi jooga inuu wato ID card kaasoo qoorta ugu jira ama jeebka ugu jira ID card kaasoo cadeynaya qofkaasi meesha uu ka shaqeynayo iyo waxyaabo kale oo ku saabsan informationkiisa marka maanta waxaan sameyn doonaa ID card kan hortiina ka muuqda ugu horeen waxaan soo furanaynaa application keeni Bixlab markaynu soo furano mar walba sidaan ayuu noogu soo bixi jiray qoraalka ayaynu iska delete gareynaynaa markaynu qoraalka delete gareeno waxaan iska saxi doonaa cabirka ID card-ka runaantii kama heli doontid Google iyo meelahaasi oo cabir sax ah kuma siin doonaan balse cabirkan aniga hadeer ku siinaya ayaa ah cabirka saxda ah kaliya cabirkaani ka soo qaado okay saddexda dhibcood ayaan dooranaysaa kadibna image size aad ku dhufanaysaa markaad image size ku dhufato width-ka ayaad iska saxi doontaa ugu horeen width-ka waxaad ka dhigi doontaa 54 halkaani kalena waxaad ka dhigaysaa 87 width-ka waxaad ka dhigaysaa oo balaci ah 54 height-ka oo jooga 87 kadibna waxaad dhihi doontaa okay sida darkiisa waxa ku soo baxay cabir yar oo qurux badan cabirkaanina waa cabirka ID card-ka ugu horeen waxaan iska saxi doonaa background-ka qaybtaani maaw color dooro kadibna color markaa soo doorato waxaad ka dooran doontaa colorka cadaanka ah ama white-ka ah kadibna tig ayaad soo dhihi doontaa markaad sidaan tig u soo dhigato background-kaagana aad cadaan ka dhigato waxaad sameyn doontaa balance ayaad dooranaysaa kadibna shape ayaad dooran doontaa markaad shape doorato shape-kaaga colorka doonto ka soo dhigo ama colorkii kula qurux badan adiga ahaan waa ujeedaa halkan waa colors balse colorka ha ahaado color ku soo baxaya hadii uusan ahayn xitaa hadhoodii dib ayaad ka bedeli kartaa oo waan isla arki doonaa aniga hadeer colorkaani oo buluuga ayaan soo doortay markaan soo doorto kadib tig ayaan soo dhihi doonaa kadibna dhinacyada ayaan u jiidaya anigoo yara dheereynaya kadibna waxaad tagaysaa qaybtaani dhex ayaad imaanaysaa waxaad tagi doontaa rotate halka ay ku qoran tahay rotate markaanu nimaano waxaynu u wadaynaa dhankaani waxaan ka dhigaynaa -30 degree ayaynu ka dhigaynaa -30 degree kadibna waxaan soo dhihi doonaa tig ayaan soo dhihi doonaa markaynu tig soo dhaano halkaasi ayaynu geysanaynaa kadibna xoogaa soo yara balaari okay si ayar ah halkaasi u gee marka okay cabirka yara dheere oo cabirka waxaa la rabaa inuu intaasi dhan inoo qariyo ama inoo daboolo oo adiga ayaa laga rabaa inaad gacantaada iskaga saxdo mar waliba aad design ku jirto qofka design-ka ku jiro waa adiga mar walibana waxaa laga doonayaa si aad wax qurxan u soo saarto inaad gacantaada iskaga habayso marka hadeer waa ujeedaa sidaasi ayaynu yeelnay oo rotate ayaynu gelinay halkaani kore waxaa lagu qori doonaa ama la soo saari doonaa loogada oo yacni loogadaasi oo iska leeyahay company-ga ama isbitaalka ama meel walba xarunta oo qofkaas uu shaqeynayo loogadeeda ayaa halkaasi la soo saaraa inta badan wixii kale waxaa lagu qoraa information iyo sidoo kale waxaa lagu soo daraa QR code ama sidoo kale barcode okay markaynu sidaan sameeyno waxaynu sameyn doonaa hadeer oo inoo xiga intaynu sawirka iyo waxyaabahaas aan shakhsiga ku soo darin information-ka ayaanba ku soo darsanaynaa wixii kale oo xiga dib ayaynu ka habeenaynaa marka waxaan sameynaynaa horta ugu horeen midkaani copy inoo dheh ayaan dhihi doonaa copy markii loo dhaho qaybtaani geeska ah ayaa toos u keenaysaa wax kale ha sameynin qaybtaani geeska ah toos u soo dhigo oo sidaasi soo yeel okay sidaas oo kale xoogaa u soo yeel markaas sidaasi aad soo yeesho xoogaa hor u soo bixi kadibna copy kale ka samee markaad copy ka sameyso waxaad tagi doontaa halka ay ku qoran tahay opacity-ga khafiif ka dhig oo ilaa iyo 70 iyo meelahaas ama 60 iyadoo geeso kadibna sidaasi halkaasi u soo yara dhig oo wax yar ha ka soo horeeyo
kalarkaasi kale haddii aan opacity halkan u celiyo 0 ayuu noqon doonaa haddii aan halkan u wadana wuu soo buuxsami doonaa marka opacity waxaynu rabnaa inaynu ka dhigno khafiif macquul ah ayaynu ka dhigaynaa oo ilaa iyo 70 iska geeso cabirkaasi ayaa okay ah marka sidaas opacity iyo waxyaabahaas oo idil iskaga saxdo hadda marka waxa sameyn doonaa waxaan ku soo darsan doonaa information yaro kooban ID card korto laba qaab ayaa loo sameeyaa mid waa qaab oo joog ah midna waa qaab jiif ah oo landscape ah midna waa qaab portrait ah oo joog oo kala waa joog ayaa loo sameeyaa oo sidaan hadda aan u sameeynayna waa midka jiifka ah waa laga tagay mar hore la adeegsan jiray balse hadda meel waliba waxaad ku arkaysaa midkan joog ah marka sidaa darteed midkan joog kaliya ayaynu sameyn doonaa midka jiifka ah waa laga tagay ayaan ku dhahay balse haddii aad rabto ama haddii lagu dhaho midka jiifka ay noo samee kaliya waxaad sameynaysaa cabirka ayaad kala bedelaysaa images ayaad tagaysaa markaad tagto halkan height oo 87 ah ayaad widthkeeda waxaad ka dhigaysaa 87 54 waxaad geenaysaa halkaasi height-ka ah kadib waa isbedeli doonaa cabirka balse badanaaba lama isticmaalo midka jiifka ah oo waa laga tagay dadka intooda badan waxay adeegsadaan midkaani joog ah okay marka ugu horeen waxaan sameeynaa markaynu sidaan waxyaabaheena u soo yeelno kadib waxa ku soo darsan doonaa information-ka aan rabno ayaan soo qoranaynaa okay halkaan ii door kadibna waxaan dhihi doonaa plus qoraalka ayaa ugu dhib badan mar walba qoraalka ID card-ka haddii aad mar hesho wixii kale waa iska easy ID card marka information ID-ga waxyaabahaas ayaan ku soo darsani doonaa ugu horeen ID ayaynu ka bilaabaynaa ID-dan okay ID waaweyn ka dhig markaad ID sidaas waaweyn aga dhigto kadib waxaad sameyn doontaa hore ayaad u wadaysaa okay dhibacdaas hadhoodii waad bixinaysaa haddii ay ku soo gasho balse ID markaad sidaas u qorto xoogaa hore u yara wad kadib waxaad ku sameynaysaa laba dhibcood ayaad gelinaysaa kadib dhibacdaani imaaw iska tir oo sidaas iska yeel kadibna hoos u soo deg okay kadib hoos ayaad u soo degi doontaa waxaa ku xiga ID card-kii number ayuu leeyahay ID card yani markaad sidaas laba dhibcood u yeelayso kadib number ayaa halkaasi lagu qorayaa balse ugu horeen waxa soo buuxin doonaa waxyaabahani okay balaad ay halkaani ku qori doonaa oo dhiigga qofka waa shakhsigaasi dhiigiisa okay balaad kadib laba dhibcood si isla bartii tag laba dhibcood si kadibna dhibacdaani uu soo noqo oo dhibacdaani iska saar okay dhibacdaani iska saar waxa muhiim ah dhibacdaas in iska aado haday dhibcahan iska aadaneen hadhoodii wareer ayaa imaanaya oo dhibcahaas waxaad isku daydaa inaad ka dhigto dhibca same ah yeysan noqonin dhibca kala dheer waa ujeedaa aniga deer waa isla siman yihiin sidaas ayaan ku wadayaa kadib hoos ayaan sii degayaa okay afan dhibci ayaa hoos iga soo degay kadibna hoos ay soo noqonayaa markaas sidaan hoos u ibaado kadib halkaan waxaan ku qori doonaa email ayaan ku qorayaa okay email ida markaas sidaas yeesho calaamadani meniska oo kala soo gali kadibna mail qor email okay sidaas ayaa loo qoraa email marka email sidaas uu qorto kadib hore u bax kadibna si labada dhibcood oo hadaayo aad siisay kuwaasi kale okay calaamadani imaaw kadibna iska tir okay sidaas marka yeesho hoos u soo yeero deg kadibna halkaas ima hoos u deg marka emailka sidaas u geliso waxa ku xiga phone information buuxa ayaan gelin doonaa okay information dhameystiran ayaynu ku shubaynaa okay kadib waxa sameeynaa waan iska tiraynaa ereygaani dhibacdaasi waan iska saaraynaa kadibna sidaas ayaynu yeelaynaa kadib halka ima hoos u soo yeero deg kadib waxa ku qori doontaa halkaani join date waqtiga uu qofkaani ID card-kan qaatay join kaliya ku sin date ku darin okay join ayaan ku simeynaa kadibna hore ayaan u yara wadaynaa oo waxaan sii doonaa laba dhibcood okay kadibna waxaan sameeynaa dhibacdaani waan tiraynaa oo halkaan mar walba naga soo raacayso haddii ay adigu soo raacaynin waad iska deyn kartaa waa caadi balse aniga way soo raacaysaa mar walba waan iska tiri doonaa okay join enta bis ay ku eg tahay biidaas waa khalad okay mar walbana dhibacdan waxaan ku dhahay waan tiri doonaa oo dhibacdaani lama rabo inay i raacdo
okay marka waxaa xiga kadib halkaan ima hoos u soo deg expire ayaa xigto okay expire يعني شيء أنا دي وقت صوب حي وقت وكدعة آيات جرو شيء ولبا وقت يصوبها وقتنا وكدعة expire أيام كسمينا أم expired وعليه كرتا expired وقت ودعايو expire أيام نسكي سمينا أوكي كده بنسيدا صوت لبعد بعد سي وما وديدا يوحنا مربنا ونسكي سارينا أوكي expire كليا إنه ربنا dhibicdaasina waan iska tiraynaa kadibna halkaas inoogu aadi ayaan dhihi doonaa hadeer marka ID-ga ayaynu buuxilaynaa ID-ga waxaan ka dhigi doonaa number iska caadi ah 1 2 3 4 5 6 7 8 balse adiga dhoodi waxaa lagu sii doonaa ID-gaas numberkiis waa lagu sii doonaa markaad qofka u sameynayso okay balaad ayaa soo yaray D-ga waa nooce D-ga waa AB+ okay AB+ okay shakhsiga loo sameeyo wax information kiisa sidaan inaad u hayso ayaa khasaba dhigiisa wuxuu yahay number kiisa ama ID card number kiisa inaad hayso sidoo kale email kiisa inaad taqaano okay ani email aniga iska leeyahay ayaan gelin doonaa kaliya email kayga ayaan gashan doonaa okay okay أنا إيميل كاسي أيان هالكاسي سداس وقلنا يا أوكي أوكي حرف كان هورا يريس إسكاي دقيقة ما دام أي سرادة كلا إيجاليان عدوتيد @gmail.com سداس يعني كدقيقة دودي أياد إسكاي هل سرد إسكاي دقيقة كرتا أوكي كدي فون أيا كحجو فون markaynu nimaano waxaanu gelin doonaa numberkii okay ani numberka waxaan ka bilaabi doonaa furaha dalka tusaale ahaan +252 hal numberkayga ayaan gelinayaa okay okay kadib join date waqtiga qofkaani ku soo biiray waxaan dhihi doonaa 5 bisha 12 2025 okay 5 bisha 12 2025 kadib waxaa ku xigta expire date ka maalintan oo kale ayuu dhacaya oo sanadka kale ah okay sanadka kale ayaan gelinayaa waxaan ka dhigi doonaa 5 bisha 12 2026 5 bisha 12 2026 sidaas ayaan ka dhigayaa kadib okay ayaan soo dhigi doonaa oo sidaas ayaan halkaani u soo dhiganayaa sidaad u jeedaa dar information buuxa ayaa halkaani ku haysanaa oo information keeni waynu dhameystiran yahay balse waxaan sameyn doonaa oo information ka aad ay host iskaga jira waxaan ku sameyn doonaa waan kala saari doonaa ama waynu kala bixin doonaa okay waxaad imaanaysaa line spacing kadibna xoogaa space kala sii oo information ka waxaa la rabaa inuu ahaado information kala baxsan ama information waadax ah okay line spacing sidaas uu soo hagaaji spacing fiican si okay line spacing kaada ilaa iyo inta macquul gal ah ka dhigo kadib tig ayaa soo dhahaysaa markaad line spacing siiso hadeer marka waxaa ku xiga inaan ku soo darsano waxyaabaheeni kale inoo harsan okay waxaan ku soo dari doonaa qofkaani magaciisa waa qofka magaciisa ayaan ku soo darsanayaa aniga magacayga ayaan ku qorayaa halkaani farwaaweyn ka dhig qofka magaciisa mar waliba okay maxamed xasan cadow ayaan ku qorayaa oo caadi af Soomaali ah ayaan ku qori doonaa English aan ma isticmaali doono okay afwan gacantayga ay dhacday calaamada aan duugaad aga noqonaysaa mar walba hadii ay wax gacanta kaaga dhacdo kadib sidaani ayaa magaca loogu soo daraa magaca markaan ku soo daro waxaan sameyn doonaa magaca farda ayaan ka bedelayaa sidoo kale kalarka madowga ah ayaan soo siinayaa oo balaagaas tiqa ah ayaan soo siinayaa kadibna waxaan tagi doonaa AB font kadibna farta arabtid halkaani ka soo dooro dhammaan fararka kugu jira mid adiga ku qanciso ka soo dooro aniga dar midaasi ayaan soo doortay oo midaasi ay ahaan doontaa kadib marka waxaa ku xigo qofka shaqadiisa qofkaani muxuu yahay muxuu qabtaa shaqada uu qabto qofkaasi ay halkaani hoose ku soo dareysa oo magaca ka hooseysa
okay aniga waxaan ahay graphic designer marka halkan waxaan ku qori doonaa graphic designer ayaan ku qorayaa okay kadibna sidaasi ayaan halkaan u soo dhigayaa shaqadeedu waa graphic designer okay marka sidaasi magacii aad u soo buuxiso qofka shaqadiisana halkaasi sidaas ay u soo dhigaysaa kalarkii waxyaabahaas waxbaha ka taabanin haddii aad rabto fontiska ay ku qancinin fontiska iska soo bedel wax weyn ma ahan marka kadib waxaan sameyn doonaa waxaa xigo waxaan ku soo darsani doonaa sabirkii shakhsiga iyo waxyaabahaas aniga hadeer marka sabir kale ayaan iska isticmaali doonaa oo sabir qof ayaan kala soo degi doonaa dhanka iyo Pinterest okay Pinterest ayaan imaanayaa Pinterest markaa imaado waxaan kala soo degi doonaa sabir shakhsi ayaan kala soo degayaa searchingkaas ayaan dooranayaa man ayaan iska qorayaa kaliya man markaa ku qoro waxa sawira ay soo baxi doono mid ka mid ah ayaan soo qaadanayaa okay sidoo kale man dressing suit waa dhigi kartaa ama sawir man qor kadibna iska u raadi waa soo heli doontaa mid un iska isticmaashid waad helaysaa oo kaliya anaga waxaan rabnaa tusaale ahaan inaan ku siiyo oo markaa sawir man ayaan iska soo qaadanaynaa oo iska caadi ah okay marka ninka xoogaa qoortiisa ha toosnaato oo ID card-ka sawir toosan ayaa loo isticmaalaa oo sawir khalkhaloocan ma rabno oo sawir toosan aynu doonaynaa okay marka ninkaan hataa wuuna anfaca oo iska soo qaadan karnaa balse haddii aynu helayno mid ka sii fiican waan sii raadsanaynaa okay midkaan waa degsanaynaa okay midkaanina waa okay asagana noo deji kadib ka soo bax marka waqtigii kugu dheeraanin shaqo ku taalo ka soo tag kadib balaas soo dooro kadibna waxaad dooranaysaa from gallery toos u dooro wax kale sameeyay shape dan waxaas dhan ma isticmaalayno isla sawirka ayaan toos u soo isticmaalaynaa sawirka ninka ayaan dooranayaa kadibna circle ayaan dooranayaa kadibna waxaan rabaa kaliya qaybtaasi face-ka ah inaan helo oo intaasi ayaa ID card-ka badanaa loo adeegsadaa marka ku aadi intaasi ku aadi oo face-ka iyo garbaha ah kaliya marka wax kale ha sameeynin okay iska sax laakiin shape-kaaga shape circle saxan ha ahaado shape-kaaga yuusan khaloocan oo shape siman ha ahaado oo dhinacyada dhan u siman okay sidaasi ayaad yeelaysaa kadib waxaad soo dhigaysaa tick sidaani ayaad ugu soo darsatay sawirkii shakhsiga haddii ay sidaani ku qancinna si kale loogu soo darsado ayaa jirto ayaad ugu soo darsanaysaa marka sida kale loogu soo darsado haddii aan ku tuso shape ayaad dooranaysaa kadibna shape circle ayaad dooranaysaa tick ayaad dhehaysaa waa taqaani midaan kadib waxaad tagaysaa halkaani dhexe tagas jar ayaad imaanaysaa kadibna waad dooranaysaa kadibna sawirkii shakhsiga ayaad soo dooran doontaa kadibna cabirkaas oo kale ayaad tick ka soo dhehaysaa waa u jeedaa sidaasi ayuu kuugu soo baxay doonaa midka kalena waa ka halfkaas ay ku noqonayaa marka sida arabtid labadaani midka arabtid haddii midkaan aan dhaho waa isticmaali karaa midkaana waa isticmaali karaa hada difference weyn uma dhaxeeyo oo farqi sidaas u weyn uma dhaxeeyo okay hadeer marka midkaan waa iska delid gareynaynaa oo kow midkaan aan iska isticmaali doonaa okay kaliya muhiimadu waxay tahay labada qaab loogu soo darsado inaan ku fahansiyo labadoodba midka arabtid waa okay midka rabtid ka isticmaal kadib waxaan u yeeli doonaa stroke aynu gelinaynaa okay halkaan ay ku qoran tahay stroke soo fur kadibna stroke geli kadibna stroke waxaad ka dhigaysaa kalarkii baluuga ah kadibna stroke xoogaa ilaa iyo 4 ka dhig okay ama 4 sida u taqaano halkaas halahaasi ka soo dhigo okay qaybtaasi sidaas u saar marka qaybtaanina graphic design sidaas u soo siki xoogaadii aad sawirka rabto waad soo yar zoom gareyn kartaa oo sidaas ayaad ka soo dhigan kartaa markaynu sidaan ka soo dhigano halkaan waxaa laga rabaa company-ga magaciisa okay company-ga magaciisa aniga hadeer ma hayno ama loogada company-ga ayaad ka soo dhiganaysaa logo company ama company-ga magaciisa labadaas mid un baa loogu talagalay marka hadhoodii waxaad sameyn doontaa company-ga magaciisa ama loogadiisa ayaad qaybtaani kore ee baluugi soo dhigi doontaa balse aniga hadeer waxaan kaliya ku qori doonaa for example ahaan Hormuud Telecom ayaan iskaga qorayaa macnaha Hormuud Telecom ayaan iskaga qorayaa ama kale loogadeeda waa soo gelin karaa okay Hormuud Telecom okay Hormuud Telecom yani shakhsigaani wuxuu u shaqeeyaa basaacad shirkadda Hormuud ayuu u shaqeeyaa waa kaliya tusaale
aniga yacni kuma lihi ninkaani hormuud ayuu toos ugu shaqeeyaa waa tusaale aan ku siinayo keliya balse inaad u fahamto sidaasi waa fahamsiis keliya kadib ab font tag haddii ay fartaani ku qancinin fart iska bedel okay farta nooca rabtid ka soo dhigo midaas haddii ku qancido ka soo dooro oo ka soo dhigo kadibna sidaasi halkaasi ugu aadib keliya halkaasi kaliya waxa laga rabaa aan ku dhahay loogada company iyo waxyaabahaas hadii aan rabano loogadeeda ayaan soo dhigaya waan ku tusin karaa loogadeeda ayaan soo gelinayaa okay loogada janaalkeega waa soo dhigi karaa okay circle-kaas aan ka dhigayaa kadibna tig ayaan soo dhahayaa loogada janaalkeega halkaani waan saari karaa okay loogada janaalkeega halkaas sidaasi waa u dhigi karaa balse waxaa ka qurux badan inaad magacaane ama magaca company-ga aad iska isticmaasho ama loogada company-ga oo dheer ah haddii aad heli karto inaad isticmaasho okay marka sidaasi ayaan halkaasi aga dhamaanaynaa marka haddeer waxaa inoo xiga waxa loo yaqaano QR code ayaan ku soo dareynaa QR code sida loo sameeyo waxaad ka helaysaa YouTube-ka aniga haddii aan QR code inta kugu sharxaa dhaho muuqaalka xad dhaaf ayuu noqonayaa marka QR code sida loo sameeyo waxaad ka helaysaa YouTube-ka kaliya ku qor sidee loo sameeyaa QR code ama sidee loo sameeyaa barcode laba shay ayaa jirto waa idin tusi doonaa QR code iyo barcode wax la dhaha jiro okay marka balaasan dooranaya haddeer QR code aan ku soo dari doonaa QR code-ka waa midkaan markaa ku soo darayaad arkaysaa waa midkaan sidaani u eg waa QR code ayaa la yiraahdaa okay waxaan rajaynayaa inaad meel badan ku aragteen oo sida zabyaha iyo meelahaasi ayaa badanaa lagu arkaa iyo sidoo kale xarumaha waaweyn ee ganacsiga QR code kale halkaan ayaan dhigaysaa QR code-ka halkaas ay dul saaraysaa kalarka haddii aad rabto waad ka bedeli kartaa oo kalar ayaad u yeeli kartaa si uu u muuqdo kalar ayaad u yeeli kartaa kalarka cadaanka ayaad sii kartaa black ayaad sii kartaa ama kalar kale ayaad sii kartaa QR code-kan waxaa ku qoran information waxaa ku dhex duuganaa ku dhahay information asiga waxa dhexdiisa ku duugan yihiin dhammaan information-ka iyo waxyaabahan dhan QR code-ka waa laga dhaxeelaa marka QR code-ka waa muhiim sida loo sameeyaan waxaad ka helaysaa YouTube-ka ku qor kaliya sidee loo sameeyaa QR code haddeer sidaad arkaysaan waxaynu sameynay ama aynu design gareynay ID card okay marka haddii aad rabto dhankaani marka haddeer waxyar ayaan oo xarakaad ayaan sameyn doonaa oo waxyaabo qurxin ayaan ku soo dari doonaa okay waxyar halkaani u siki magacaani sidoo kale graphic designer-ka halkaas u siki sidoo kalena sawirka xoogaa halkaasi oo dhexe ku yar aadi dhaxa ku aadanaado sawirkaaga kadib waxaan sameyn doonaa waxyar oo qurxitaan ayaan ku sameyn doonaa ID card-keena balaas ayaan dooranayaa shape ayaan dooranayaa kadibna halkan radius-ka shape circle ka dhigo kadibna kalarkaasi ka dooro kadibna sidaas u yara dhuub shape-ka kadib tig soo dheh markaa tig soo dhaho kadib sidaasi u yara khalooci okay sidaas u yara khalooci okay haddeer waa okay marka sidaas markaa yeelo kadib copy ayaan dhihi doonaa isla asiga ayaa copy ka dhihaysaa kadibna ka soo yara siki sidaas oo kale halkaasi u yara geey okay ka soo yara siki halkaasi geey kadib asiga un copy ka samee kadib soo qabo mid saddexaad halkaasi asigana sidaas u dhig xarakaadka lagu sheegay kaliya intaas ayuu ahaa oo haddeer wuxuu noqday ID card professional ah ama si cajiib ah u design garaysan okay kadib marka information-kaaga waxaa halkaas u soo dhabayso oo ilaa marka inta rabtid sidaas oo kale ka soo dhigo kadibna magaca iyo waxaagii dhan halkaan ay ku qoran yihiin sawirkii waad haysataa sidoo kale haddii aad rabtana halkaan waxaad ku soo darsanaysaa shape okay haddii aad rabto leewa shaygan aniga haddeer sidaas waa ku dhameynay balse haddii aad rabto shape ku soo dar shape-kaas kadibna halkaani yar hoose ayaad dhigaysaa kadibna waxaad sameynaysaa waad qabanaysaa halkaas software lyrics-ka kadib shape-kan qabo gadaalgee hoosgee meesha ugu dambeyso gee ee design-kaaga okay waad geysay kadib marka soo laabo waa ujeedaa marka ID card-kii sidaas ayuu ku soo baxayaa waa ujeedaa shape-kii wixii waa isdhexgelinay wax dhan sidaasi ayaynu ku sameynay ama ayaynu ku haysanaa waxaan rajaynayaa inaad fahamteen sidaani fudud
okay waa qaabka ugu fudud uguna quruxda badan ee ID card-ka loo sameeyo midkaan hadii aad weli aad rabto line spacing-kii ay tagaysaa oo spacing ay ku soo daraysaa hadii aad rabto in weli xoogaa hoos lagu ugu dhigo ama xoogaa lagu sii kala bixiyo sidaas oo kale ayaad halkaasi ka yeelaysaa oo kadib waxaad sidaas ku haysataa ID card-ka marka wuxuu leeyahay front iyo background marka ID card background-kiisa waa gadaal gadaal ayaa laga sameeyaa balse waa isla cabirkan okay horta ugu horeen waxaanu seefanaynaa ID card-keena save as image aynu dooranaynaa kadibna waxaan soo furi doonaa save to gallery intaan dhihin ka hor save halkaas soo fur alter ka dhigo kadibna save to gallery dooro marka hadeer waa nolo seefay ID card-keeni oo wuxuu inoogu jiraa qaybta iyo gallery-ga mobilkeena ayuu inoogu jiraa marka hadeer waxaan ku tusin doonaa ID card background-kii ugu horreyn save as project ayaan dhihi doonaa kadibna waxyaabahan waa iska delete garee doonaa save as project markaad doorto ID card ayaan ku qorayaa okay ayaan dhihi doonaa waa lii seefay kadib project aan ugu seefan yahay marka waxaan sameyn doonaa waxyaabahan oo idil waa iska delete gareynaysaa isla cabirkaan ayaad ku shaqeyn doontaa balse waxyaabahan iska delete garee okay delete iska dheh hatta midkaasi soo cesho oo nashqad badan lagama rabo balse qoraalkii waxyaabahaas iska delete garee qoraalkaas iska delete garee sidoo kale magacaan delete leh sidoo kale graphic design delete leh oo information-ka naftirkiisa waa delete gareynaysaa okay waxaanu nashqadeynaynaa qaybta dambe aynu nashqadeynaynaa sidoo kale QR code-kaas waa delete gareynayaa sidoo kale shape-kaani halkaan yaalo delete ayaan ku sameynayaa oo halkaan design badan lagama rabo iska furfur waxaasna iska delete garee kadib halkaan marka sidaan oo kale ku soo reebo oo midkaani kaliya sidaan dhexdaan hoose ugu soo yar aadi okay sidaas ka dhigo marka halka sidaan aad ka dhigato halkaan inta badan waxa lagu qoraa kaliya information-kii iyo waxyaabihii yar ayaa lagu qoraa tusaalahan hadii uu kaarkaani lumo waxaad nagala soo xiriiri kartaa numberkaas ama gmail-kaas okay information yar ayaan ku soo qorayaa hadii aad kaarkaani hesho asigoo lunsan camal waxaad ku soo hagaajin kartaa numberkaasi hadii aad ID card-kan hadii aad ID card-kan aad hesho hadii aad ID card-kan aad hesho fadlan walaal waxaan si naxariis leh okay waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad halkaan nagala soo xiriirto kadib okay soo dheh intaani muhiimadda waa qoraal leh waa waxyaabo kale loogama baana qoraal iyo gmail-kaaga iyo waxyaabahaasi ayaad soo gelinaysaa kalar madow ka dhigo sidoo kale farta ka bedelo ab font tag farta nooca rabtid soo sii okay farta rabtid ka soo dooro kadib waxaad sameyn doontaa waad isku hagaajisan doontaa okay sidaas oo kale ayaa qoraalkeena hadeer inoogu soo darsamay marka waxaan halkaan soo dhigi doonaa meelaha uu nagala soo xiriiri karo qofka iyo waxyaabahaasi aynu halkaan soo dhigaynaa okay contact us oo kale ayaad ku soo qoranaysaa kadib waxaad dhihi doontaa shape doorataa markaa shape doorato shape-kaaga colorkaasi ka dhigo kadib sidaasi kadib radius geli shape radius geli okay dheh qoraalkan xoogaa iska yareynaya halkaasi halkaan waxaa ku qorayaa kaliya contact us qofka halkuu nagala soo xiriir karo fartaas kuu bidheh kadibna dooro contact us dheh contact us far waaweyn ka dhigo kadib sidaas okay u soo dheh qaybtaani ku aadi okay
cashirkan wuu dheer yahay ilaan maxaa yeelay ID card dhammaystiran ayaynu sameynaynaa oo back iyo front ah gadaashiisa iyo hortiisa ayaynu ID card ka nashqadeynaynaa okay contact us markaa sidaas u dhacdo kadib waxaad halkaan soo dhigi doontaa phone number-kaaga sidoo kale iyo waxyaabahaaga kale okay iyo email-kaaga ugu horreyn waxaan ku soo dareynaa phone-ka ayaan ku soo darsanaynaa okay phone ayaan dhahaynaa phone number markaad dhahdo kadib dooro number-kaaga ku soo qoro eber 617 number-kaaga ku soo qoro ani number-kaas ayaan ku qortay kadib email ayaan dhihi doonaa oo email-ka ligala soo xiriiri karo ayaan halkaan ku qoranayaa okay email markaa ku qortid email-kaaga geli toos u geli email-kaaga 2 dhibcood si okay halkaasna sidoo kale 2 dhibcood si waa ka hilmaamay 2 dhibcood si okay kadib email-kaaga ku qoro okay aniga deer email-kayga ayaan ku qoranayaa adow teach ayaan ku qorayaa oo caadi ah email iyo gmail waa isku same yaa wax kale ha u maleenin sidaas u qoro sidoo kale location ama barta oo waxyaabahaasi lagala soo xiriiri karo qofkaan halkee jooga oo kale location-kaas oo kale waa ku qori kartaa balse muhiim maaha tusaalahaan location aan hadda waxaan dhihi karaa location okay location ta koowaad xaraf weyn ka dhig location 2 dhibcood inaasiyo kadibna waxaan sheegayaa xarunta aan ka shaqeeyo ama meesha aan u shaqeeyo ayaan dhihi karaa okay xarunta waxaan dhihi karaa tusaale ahaan Hormuud Muqdisho Soomaaliya okay Hormuud Muqdisho Soomaaliya hay gaar ahaan intee waa Hormuudaas Muqdisho Soomaaliya gaar ahaan Hormuud leen shirkad badan ah jirto oo Hormuud ah meel kala duwan ay ku taalaa salaan degmada ay ku taala amal ama xaafada u dhowda oo kale ay sheegaysaa okay aniga hadeer marka waxaan dhihi doonaa Hormuud Muqdisho Soomaaliya okay kadib waxaan dhihi doonaa calaamadaasi ayaan gelinayaa waxaan ku qorayaa tusaale ahaan meesha u dhow xaruntaasi ama Hormuudaasi laantee waa qaybtay ku taala baranjigay ku taala okay degmada wada jir ayaan dhihi doonaa tusaale ahaan deg ay u soo gaabiyaa ama degmada toosan waa qori kartaa wada jir qor kadib wada jir tusaale ahaan marka sidaas u qor degmada wada jir kadib Hormuudana waxay ku taalaa tusaale ahaan argada ayaan dhihi doonaa tusaalahan argada kadib okay ayaan dhihi doonaa kaliya intaani waa information kale oo information-ka waa muhiim wuxuu ka qayb qaadanayaa shaygan haddii uu ka lumo halka lagu soo hagaajin karo okay halka lagu soo hagaajin karo qofku wuxuu kugu soo hagaajin karaa number-kaasi ama xaruntaada ayuu fahmayaa oo halkaas ay kugu keeni doonaa okay kadib waxaa sameynayaa qoraalka ayaan ka bedelayaa okay color-ka ayaan ka bedelayaa oo color black ah ayaan ka dhigaynaa ama color-ka madoogan kadib tig ayaa sidaasi u dhihi doonaa okay qoraalkaasi halkaasi inoo gee contact-ga inoo siki xooga oo qaybtaasi dhex inoogu sigi kadib sidaas u saar tagastigaan halkaasi sidaasi dhag ugu dheh kadib marka halkaan hoos waxaan soo saari doonaa barcode waa sidii aan ku sheegay waa ku tusin doonaa asigana kii hor waxa la dhahay QR code kanna waxa la yiraahdaa barcode inaad kala fahmaysaan ayaan rajaynayaa QR code iyo barcode ayaa loo kala yaqaanaa okay inoo soo siki marka barcode keen halkaan ayaan saaranaynaa okay barcode-ka halkaan ayaynu dhiganaynaa marka barcode-ka color-kiisa waa black hadeer color-kiisa sigan white ayaan ka dhigi doonaa ama color-ka cadaanka ah ayaynu ka dhiganaynaa barcode-ka kadib halkaas aad soo saaranaysaa asigana sidoo kale information ayaa ku duugan oo la iskama sameynin okay sidaas ayaa halkaas asigana u soo saari doontaa barcode-kaaga asigoo waliba habaysan ama nidaamsan ayaad halkaas u soo dhiganaysaa okay waxaan rajaynayaa hadeer inaad ila fahamteen aadna ila socotaan kadib markaas sidaas wax dhan u dhamayso halkaan sidii caadiga ah waxaan ku qori doonaa magacii oo shirkadda ayaynu ku qoraynaa okay Hormuud Telecom ayaan ku qorayaa Hormuud Telecom
كليوا for example information كاني information سحل معه أو أنا جربود وبشقيه بلس for example أدودي شخص إذا أقبض دونتو معناه بان كنت سيرويا أدودي لوجن واسو صار كرتان قول هالكاسي أم سيداسي مجا شركة داسي وقصو خوري دونتا أوكي هالكاسي أوكله أيان ديجنينا كلية مركب باجا سيدان أيا لو خورا أوكي مركب حوجا إسبيلين كيسا صح حوجا qoraalka yar kala siki kadibna sidaas oo kale ayaad yeelaysaa waa u jeedaa hadeer markii information-kii iyo wixii dhan waa ku soo darsanay oo waa okay waa dhameystiran yahay kadib mar walibana wixii yar oo khaladaad ah ama aad dareento adiga ayaa iska habeen karo oo iska habee oo inaad fahamteen ayaan rajeynayaa cashirkeena halkaas ayaan ku soo koobaynaa hadeerna waxaan seefan doonaa ID card keeni baaggiisa aynu seefanaynaa save as image kadibna altra aynu soo furaynaa kadibna waxaan soo furi doonaa save to gallery ayaan dhihi doonaa altra save to gallery hadeer marka waxaani dhan waa sameysanay marka hadhoodii ID card-ka sidee loo daabacaa waa yaabe ID card-ka waxaad ka welwelaysaa hadeer laba nashqad ayaynu u kala sameynay baag iyo front ayaynu sameynay runaantii baagga waxaa loo daabici doonaa si gooni ah frontigan si gooni ah sidaasi ayaad isleedahay balse ID card-ka waa hal xabo kaliya ID card-ku waa hal xabo baagiisa iyo frontigiisa hadhoodii waa la isku dhejin doonaa oo waxay noqon doonaan hal ID card ah qaybtan waxay maraysaa gadaal qaybta kalena waxay soo maraysaa hore ama frontiga ay soo maraysaa fronti baag waad kala fahmaysaan qaybtan waxay noqon doontaa qaybta hore ayay noqonaysaa oo frontiga ah qaybtan waxay noqonaysaa qaybta gadaal ama qaybta baaga ah ayay maraysaa waxaan rajeynayaa saaxiibayaal inaad fahamteen cashirka ID card-kan oo aad u qurux badan inaad soo design gareey doontaan inta aan ku kulmi doono cashirkan cashirka xiga waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo